Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Weli waxaan ku guda jirnaa zakada. Waxaan ka soo baxnay xoolaha, geela, lo'-da iyo ariga. Hadeerna waxaan guda geli doonaa dahabka, qalinka iyo lacagaha warqadaha ah. Dahabka nisaabkiisa ama heerka zakada looga qaadi karo haddii uu gaaro waa 85 garaam. 85 garaam oo dahaba qof iyo ka badan qofkii haysta waxaa waajib ku ah in uu zako ka bixiyo. Qalinka nisaabkiisa ama heerka zakada looga qaadi karo haddii uu gaaro waa 595 garaam. 595 garaam oo qalina qofkii haysta waxaa waajib ku ah inuu zako bixiyo. Lacagaha warqadaha ah ayaga nisaabkooda, nisaabka dahabka ama qalinka nisaabkiisa ayaa la qiimeynayaa. Inta ay qiimaha noqdaan ayaa zakada uu ka bixinaya. Tusaale, dahabka nisaabkiisa wuxuu ahaa 45 garaam. 45 garaam ayaa la qiimeynayaa lacag ahaan inta ay yihiin. 45 garaam calaa garaam haddii aan ka soo qaadno in $45. $45 85 garaam haddii aan ku dhufano waxay noo soo baxaysaa $3825. $3825 iyo ka badan qofkii haysta waxaa waajib ku ah in uu zako bixiyo. Midaan waa tusaale, ma aha tiro go-an oo xadidan ma aha. Dahabka calaa garaam inta uu suuqa marayo marna kor ayuu u kacayaa, marna hoos ayuu u degayaa. Marka adiga waxaad la soconaysaa suuqa calaa garaam inta uu marayo. Waxaad ku dhufsanaysaa marka 85 garaam. Inta kuu soo baxda oo lacag ahaan intaas haddii aad haysato iyo in ka badan waxaa waajib kugu ah inaad zako bixiso. Qadarka ama inta laga bixinayo dahabka, qalinka iyo lacagaha warqadaha ah waxaa la bixinayaa rubcul cushri. Rubcul cushri wuxuu ka dhigan yahay in tirada aad ka haysato dahabka, qalinka ama lacagaha warqadaha ah waxaa loo qaybinayaa 10. Kadib waxaa loo sii qaybinayaa 4. Inta soo baxda ayaa zako ahaan loo bixinayaa. Si kalena waad ku soo saari kartaa. Rubcul cushri wuxuu ka dhigan yahay 2.5%. 2.5% ayaad waxaad ku dhufanaysaa inta aad ka haysato dahabka, qalinka iyo lacagaha warqadaha ah. Tirada kuu soo baxda markaas intaas ayaa la bixinaya. Labada wado kaad martaba way iskeenaysaa xisaabta. Tusaale ahaan qofka wuxuu haystaa 120 garaam oo dahab ah. Nisaabka dahabka ama inta dahabka zakada ay ugu waajibayso tirada wuxuu ahaa 85 garaam oo dahaba. Qofka hadduu haysto iyo in ka badan zako ayaa waajib ku ahayd. Qofka bilmasal wuxuu haystaa 120 garaam oo dahab ah. Meeqa ahaan ayuu zako u bixinayaa? 120 ayuu wuxuu u qaybinayaa 10. Kadib wuxuu usii qaybinayaa 4. Inta soo baxda ayuu zako ahaan u bixinayaa. 120 10 haddii loo qaybiyo waa 12. Kadib 12kaas 4 u qaybi waa 3. waxay ka dhigan tahay marka 120 garaam oo dahaba qofka haysta zako ahaan wuxuu u bixinayaa 3 garaam ayuu zako ahaan u bixinayaa. Qalinka iyo lacagahana sidaas ayaad u xisaabinaysaa. Qalinka iyo dahabka waa garaam ahaan, balse lacagahan warqadaha ah ayaga nisaabkooda wuxuu ahaa ileen qiimaha dahabka ama qiimaha qalinka nisaabkooda ayaa la qiimeynayaa inta ay ku fadhiyaan. Tusaale ahaan dahabka nisaabkiisa wuxuu ahaa 85 garaam. 85 garaam ayaa la qiimeynayaa, suuqa ayaa la tegayaa, inta ay noqonayaan lacag ahaan ayaa la soo ogaanayaa. 85 garaam hadda dahabka xilligan aan taagannahay oo taariikhdu ay tahay 26 bisha 8 2019 wuxuu ahaa 85 garaam. calaa garaam wuxuu suuqa ku fadhiyaa dahabka markii laga cabir qaato dahab Jidda iyo dahab Dubai waa 45 ayay marayeen. Dahab Singapore waa 47 sida ay qolada dahableyda ay noo sheegeen. Marka 45 haddii aan ka soo qaadno dahabka 45 garaam ayaa waxaa $45 oo calaa garaam ah ayaa waxaa lagu dhufanayaa 85 garaam. 85 garaam markii lagu dhufto waxay noqotay $3825. $3825 qofkii haysta lacag ahaan waxaa waajib ku ah zako. Tiradan iyo in ka badan qofkii haysta zako ayaa waajib ku ah. Qofka tiradan haddii uu haysto $3825
oo haysto oo zakana ay ku waajibtay iyo ka badan haysta meeqa ayuu bixinayaa marka 3825 ayaa waxaa loo qaybinayaa 10 tira ayaa soo baxaysa oo ah 382.5 ayaa soo baxaysa yani $382 iyo bar waay $382 iyo bartaas ayuu wuxuu u qaybinayaa 4 ayuu usii qaybinayaa waxaa soo baxaysa marka $95 iyo jajab raacsan waa adiga $96 $96 ayuu qofka zaka ahaan u bixinayaa marka sidaas ayay u xisaabinaysaa wadadii kalena waad mari kartaa oo 2.5 ayaad si toos waxaad ugu dhufanaysaa tirada aad haysato oo ahayd $3,825 $3,825 ayuu si toos ugu dhufanayaa 2.5 waxaa usoo baxaysa $96 au bixin lahaa zaka ahaan u dhiibi lahaa ayaa usoo baxay